أردت وعن أصحاب تقول حرن بيج كيوتيوب كالسجارتي وبوحد كسر دباتان وركض فها عالمك يقول يقول هذا طبعا إذا كنا نوحد مدينة مقبولة بوتلاند وشيء إن إسكاشن دونار الدولة في بوتلاند أمريكا مقالة تعرف عايزة دولة اليوكي أو كهذا الشيء نوع الدورشة أي سوماليا لا تقطع يا رب نوع من التريقة إليه عيدة كينيا أو قصر لعبي تزور تجربة خاصة أخبارات عالمك وعند الحين وضحى كخيبة عسكر سعوديان أو لغولا هي حدود اليمن هي إمارات كعربته أو كتشوابي كتشوابي بس الحقيقة هاي خطبة وجود الكرون وركيقا إذا كان قصر لبدا يبقى تاسي madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Puntland iyo Galmudug ay iska kaashanayaan sugidda ammaanka magaalada Gaalkacyo si bulshadu ku dhaqan ay ku wada noolaadaan xasilooni walaalnimo iyo in laga wada shaqeeyo isdhexgalka bulshada. madaxweyne Deni waxa uu sheegay in heshiiska isaga iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoqor uu ka mid ahaa iskaashiga wasaaradaha amniga iyo maamulku gaar ah magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ay labaduba ka arabiyaan sugidda ammaanka Gaalkacyo in labada wasaaradood si uu amniga iyo arrimaha gudaha ay ka wada shaqeeyaan waxaan ku heshiinay madaxweyne Qoqor waxaan dhammaan hay'adaha safarayna inay sidii loogu talagalay u shaqeeyaan amniga magaalada uu noqdo mid si buuxda la isku haleyn karo ayuu yiri madaxweyne Deni. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sidoo kale bulshada labada dhinac ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka oo muhiim u ah horumarka ka socda magaalada Gaalkacyo. ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa hadalkani ka sheegay mar uu xarig ka jaray mashruuca dhismaha wadooyinka ka socda magaalada Gaalkacyo ee uu daafuray wejigii labaad ee wadada dhisayo magaalada iska kaashanaya labada maamul. dowladda UK waxa ay ka hadashay nooca doorasho ee Soomaaliya in laga qabto ay tahay safiirka Britain jooga Soomaaliya Fender ayaa sheegay in Soomaalida ay u taalo inay go'aan ka gaaraan hogaamiyaha ay doonayaan waqtiga doorashooyinkana soo socdo iyo in nooca ay noqonayso laga wada tashado halkaasi oo u muuqda in uu ka soo degay meeshii uu markii hore istaagsanaa doorashooyinka oo ay dalbanayeen in xilligooda ku qabsoomaan. waxaan ixtiraamayna madaxbannaanida Soomaaliya qofka hogaaminaya Soomaaliya iyo doorashada Soomaaliya kaliya ayaa go'aan ka gaaraysa ayuu Fender Twitterkiisa ku soo daawacay muuqaal soconaya 2 daqiiqo. siyaasiyiinta Soomaalida hadda waxay haystaan muddo 4 bilood oo ka xigta xilliga ay tahay in la qabto doorashada baarlamaanka 27 December 2020 iyo midda madaxtooyada oo ku beegan 8 Febraayo 2021. xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyadu waxa ay ku adkeysanayaan in la qabto doorashada xilligeeda iyadoo la adeegsanayo hannaan dadban halka madaxda dowladda federaalku ay ku adkeysanayaan inuu qabto doorasho qof iyo cod ah iyadoo la kordhinayo muddaxileedka hay'adaha dastuuriga ah. guddiga doorashooyinka waxay codsadeen $7 milyan si ay u qabtaan doorasho kala duwan si midii hore looga qabtay 2017 taasi oo la rumaysan yahay in uu musuq hareeray. safiirka UK ayaa sheegay inuu go'aansaday in dadka lagu wadaago go'aanka dalkiisa ee ku aadan doorashooyinka ay soo socda Soomaaliya kadib markii uu helay su'aalo badan oo ku saabsan meesha UK ay ka taagan tahay arrimaha dalka imika uu marayo isagoo in dowladda ay mucaaradka ay si dhow ereydiisa oo socdaan ayuu ka wacday xeerintii ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee Xasan Khayre baarlamaanku uu ku eedeeyay in uu ku guuldareystay in uu diyaariyo doorasho xilligeedii ku dhacda. Fender waxa uu doortay in uu diiradda saaro baahida ay Soomaaliya qabto wadahadallada iyo tanaasul waqti yar ayuuna ku qarasho galeeyay ku hadalka doorashooyinka soo socda. waa muhiim inuu jiro wadaxaajood siyaasadeed oo loo dhan yahay si hore looga socdo loona dhiso hanaanka lagu heshiiyey ee shirka Dhuusamareeb ayuu yiri isagoo soo xiganaya heshiiskii 22 Julaay ee gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dalka. heshiiska waxa uu ku baaqaya in dalka laga qabto doorasho xilligeeda ku dhacda isla markaana lagu wada qanacsan yahay iyo in la asaaso guddi farsamo oo ka shaqeeya nooca doorashada.
waxaan ugu baaqayaa qof walba in gacanta la isqabsado la isuna tanaasulo yiri Fender san kala soo dhaafay ayuu Fender ka cayraysiiyey dad badan markii uu si furan u cambaarayay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markaan ayuu haddana bedelay aragtidii dowladdiisa ee doorashada Kismaayo markii uu ku jiray 13 dowladoodka qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo soo dhaweeyay heshiiska ay gaadheen Axmed Madoobe iyo raggii ka soo horjeeday way wanaagsan tahay in la arko dhacdada iska soo jeedka oo heshiiyay laakiin waxaa soo laabanaya siyaasadda oo leeyahay ayuu safiirku ku sheegay wararkii ugu dambeeyay ee diyaarad laga leeyahay dalka Kenya oo ku soo dhacday Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu khasaare jiro wararka laga helay gobolka Jubbada Hoose ay sheegayeen saacadii la soo dhaafay diyaarad nooca militariga ay leeyihiin ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya ay ku burburtay garoonka diyaaradaha degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose diyaaradda oo sahay u sidee ciidamada Kenya ee ku sugan degmadaasi ayaa la sheegay in shil gashay xilli ay doonaysay in caga dhigato garoonka Dobley ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa 3 kale oo dhammaan ah howlwadeenadii la socday diyaaradda burburtay khasaaraha ayaa lagu soo warmayaa in uu yar yahay dadka la socday diyaaradda oo aad u koobnaa sidoo kale waxaa lagu guuleystay in la damiyo dab qabsaday diyaaradda oo la soo wariyay inay dhacday xilli habeen ah ilaa hadda lama oga sababta rasmiga ah ee dhalisay shilka diyaaradeed weli ma jirto waxa kale oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dalkaasi Kenya shilka diyaaradeed ayaa wadooyinka shilalka diyaaradeed ayaa muddooyinka la soo dhaafay ku soo badanayay gudaha Soomaaliya waxaana ay ahayd dhawaan markii diyaaradda u socotay ciidamada Djibouti ay ku dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee Ugaas Khalifa Amaraadka caalamka haddii aynu eegnana Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku jawaabay dalka Turkiga oo jawaab u muuqata ayaana hawada u mariyay wasiirka dowladda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in Turkiga looga baahan yahay inuu joojiyo faragelinta arrimaha Carabta isagoo cambaarayay hadal uu wasiirka difaaca Turkiga ka sheegay Liibiya hadalkiisa ayaa yimid kadib markii warbaahinta Turkiga ay welisay wasiirka difaaca hadalkiisa ayaa yimid kadib markii warbaahinta Turkiga ay welisay in wasiirka difaaca Turkiga uu ka hadlayo arrimo xasaasi ah ku saabsan cunaqabateynta Imaaraadka saaran Liibiya Imaaraadka oo kaashanaya Masar iyo Ruushka ayaa taageero ciidan jooga bariga Liibiya ee uu hogaamiyo Khalifa Haftar halkaasi oo xooggiisu ay dagaal kula jiraan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay Liibiya Turkiga waxa uu taageerayaa dowladda Liibiya xeeladaha hanjabaadda lagu maareeyo mana jiro gumeysi xilligan ayuu Twitter-ka ku soo qoray Anwar Gargaasha wasiirka gaashaandhigga Turkiga Hulusi Akar ayaa toddobaadkii sheegay in Imaaraadku Carabtu uu yahay dal lagu shaqeyso oo dalal kale ugu adeega military iyo siyaada ahaan sidii la doonana loo leexiyo isagoo cambaarayay faragelinta Imaaraadka Liibiya Syria ayaa ka waxa uu wareysi u siiyay Al Jazeera kuna sheegay in Turkiga Imaaraadku waqtiga iyo weliba goob ugu habboonay kala xisaabtami doonaan ficilada xun ee ay ka geysan dalka Liibiya iyo waddanka Syria Akar iyo Imaaraadka ugu baaqay in ay ka fakaraan sida uu yahay dal aad u yar iyo heerka saameyntooda markaana aysan faafin rabshadaha iyo musuqmaasuqa wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyay Imaaraadka in ay taageeraan ururo argaxiso oo ka soo jeeda Turkiga kuwaasi oo ujeedkoodu yahay inay dhaawacaan Ankara guud ahaan halkan ayada ku soo gabagabaynaya hawlkii aad kala socotay 9 Tiyuba intaynu warkaan warlacaynaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo